السلام عليكم muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay maxaa eeda oo dhan dumarka loo saaraa hadii aan ka soo yara qaadno ninka iyo naagta ninka waxa uu leeyahay xaaskeyga wili waxba ma aysan ii dhalin iyo dhaha dadka maxay dhahayaan la guurso xaaska loo imaado gabadhu waxay dhahaysaa ninkeygu waa madhaleys waxay u dhahaysaa dadku waxay dhahayaan u sabar ilaahay waxa uu jecel yahay dadka sabarka badan ninka wuxuu leeyahay gabadhaydu ama xaaskeygu way xanuunsan tahay ma awoodo inay fuliso hawlaha guriga oo dhan dadkan waxay leeyihiin iska fur oo tuu kala guurso gabadhu waxa ay dhahaysaa ninkeyga waa u xanuunsan yahay mana awoodo in uu shaqo tago dadka waxa ay dhahayaan samir oo raaso shaqo oo ninkaaga aad ku taageeraysid ninka waxa uu leeyahay gabadhaydu ama xaaskeygu waa ay madax adag tahay mana maqasho hadaladeyda dadku waxa ay dhahayaan iska fur oo tuu kala guurso gabadhu waxa ay leedahay ninkeyga waa uu idilaa dadku waxa ay leeyihiin u dulqaad oo u samir reerkaaga iyo caruurtaada dartooda ninku waxa uu leeyahay gabadhaydu ama xaaskeygu ilama qurux badna dadku waxa ay leeyihiin iska fur oo hiblaayo Soomaalidan aragha la guurso gabadhu waxa ay leedahay ninkeyga ima daryeelo aragtideydana ma daneeyo wax kasto aan weydiistana ima sameeyo dadku waxa ay leeyihiin u dulqaado gabadhu gurigeeda ay ku asturan tahay hadda halkaan waxa ku soo sheegnay nin iyo naag iyo laba dad ninkana wuxuu wataa dad gooniya gabadhuna waxay wadataa dad gooniya okay markii aan u imaano ragga ninka ragga dadku uu wato ama ragga asxaabtiisii oo kale maxay ula taliyaan mar walba gabadha ninka markuu gabadhiisii uga sheekeeyo asxaabtu maxay mar walba u dhahaan iska fur ama iska yaal sida maraduug oo xumaatay oo kale maxay isaga bedel u dhahaan markii dhanka gabadha u imaanayna gabadhu maxay mar walba dadkeeda ama gabdhaha kale asxaabteeda ama familkeeda ama walaalaheed ama hooyooyinkeeda habaryarkeeda waxay rabtaa u noqdaan gabdhuhu dadka gabdhaha ka soo qaad ayagana maxay u dhahaan mar walba gabadhu gurigeeda ay ku asturan tahay gurigaaga joog gurigaaga yeel maxay mar walba u dhahaan oo gurigeeda ugu haayaan waa su'aal isweydiin mudan waayo dumarku waxay ula taliyaan dumarka kale inta ugu badan dulqaadka halka ragga kale oo uga la taliyaan iska fur yeeso ku dhibin ilaahay afar uu ku baneeyay heblaaye la guurso eeda dhanka takhallus guriga hooyadeedu celi maxaa eeda dambiga oo dhan dumarka loo saaraa hadaba waxaan rabaa dumarka daayarka ama channelkayga ku xiran ama gabdhuhu daayarta ah oo channelkayga ku xiran teenagerka inaan hadaba waxaan rabaa inaan talooyin siiyo hablaha yaryar ama gabdhuhu yaryar oo channelkayga ku xiran oo teenagerka ah ama aanba guursaninba oo channelkayga ku xiran inaan tala siiyo guurku da ma lahan dhalmadana ma ahan mid xadidan sidoo kale waxbarashaduna waqti ma lahan ha soo koobin khibradaha hana go'aaminin mudnaanta heerarka qof walba noloshiisa way ka dugan tahay kan kale saaxiibka sidoo uu nool yahay adigu uma noolid sida adigu nooshahay saaxiibka uma noola daruufahan kartidan iyo fikradahanba qofka waxa uu go'aamiyaa uu doortaa waxa uu ku haboon yahay mise waa beentay jaamacad baa galaysaa jaamacad baa dhiganaysaa waxa dooranaysaa faculty-ga adiga aad macnaha faculty-ga adiga aad jeceshahay ama aad ku haboon tahay inaad barato sidoo kale waxaad guursanaysaa wiilka adiga aad jeceshahay macnaha nafsadaadana ku haboon inaad guursato wuxuuna bilaabaa qofka waqtiga uu isaga ku haboon hadaba xadidin guusha guuldarada dib u dhaca iyo horumarka daawadayga sharafta leh gabaray ama wiilow hadaba adigoo adeegsanaya aragtidaada sharafta leh waxay noogu wadaagtaa commentiga intaan waxay iga ahayd talooyin yar idin siinaa idinka insha Allah man rabo muuqaalka inaa ku sii fogaado laakiin wiliga ha isdhihin guurku da ayuu leeyahay hana isdhihin dhalmadu way xadidan tahay sababtoo ah da'da doonta aad ku dhali kartaa haduu Ilaahay ku siiyo da'da doontana ku guursan kartaa haduu Ilaahay ku sahlo so insha Allah muuqaalkan maanta halkaan ku akeen doonaa okay insha Allah muuqaalkan maanta halkaas ku soo akeen nata ka kulmo muuqaalka waxaan idin heesay naga sii bukra tawliya kuna marabahooda